بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد kelimad in sha allahu tacaala uu idinka baahin badan yahay kan idinla hadlaya oo aan u wada baahannahay allahna waafajiyo in sha allahu tacaala. tadkiir iyo isxusuusin inaan isxusuusinno maxaa lanoo abuuray, ujeeddada lanaga leeyahay maxay tahay, insaanku waxa uu sharaf ku yeelan karo ama qiimo ku yeelan karo intuu adduunka uu joogo muxuu yahay. sidaad la socotaan allah jala jalaaluhu shay kasta uu abuuray, abuuritaanka uu abuuray wuxuu ku kala fadilay sifaat ama astaamooyin iyo calaamado uu kaga duwan yahay shayga kale, oo shay walba shayga kale intuu ka sifo fiican yahay oo ka wanaagsan yahay ayuu ka qiimo badan yahay. wailaa dahabka caadiga dhagaxan caadiga iyo dahabkan qiimaha leh labaduba waa dhagax, hada xajar wa hada xajar, walaakin kan wuxuu kaga duwanaaday oo kaga qiimo badnaaday waa sifada gaarka ah uu yeeshay, xataa ay gaadhay in lagu kala fadilo xayawaanka. falkalbu lmucallam laysa kalkalbi gayri lmucallam, ayga la tababaray ee la baray siduu wax u dabi lahaa oo waadha u soo qaban lahaa lama mid aha, oo waa uu ka qiimo badan yahay kana waxba kala garanay. fakadalik insaankuna isagoo insaan yahay oo kulligood insaan oo dhanba uu mukaram yahay oo ilaahay sharaf u yeelay oo makhluuqaadka intiisa kale ilaahay dhulka ku abuuray uu ka fadilay, ayaa haddana insaanku wuxuu ku kisii kala fadilan yahay bisifaat. marka sifada insaanka fadilaysa ee insaan darajat alinsaaniya gaarsiinaysa waa iimaan. iimaanka haddii la waayo insaanku inxitaad baa ku dhacaya, darajadii ilaahay uu ugu talagalay waa ka soo dhaxaya ee insaaninimada ahayd ilaa uu noqdo xayawaanka ama wax ka siiba liitaba, sida ilaahay noogu sheegay kuwa iimaanka waayey in hum ila kalancaami bal hum adaluu sabiila.
فما هو الإيمان؟ الإيمان الأصل وأن نؤمن بالله كوا كان رمينين والله ومن هو ربنا ربي وكان أبوري نقول جرين وكعدم يوحن جرين نقد حسمي مجرين ما أنا جرين أديكم ماذا جرين إنسان وحلا إلى ما مجرين بقى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وكلام رب العالمين ورتلو إنسان كما صومرتي وحن إنسان ليلى ما صومرتي بري أما مر وها وحن لا أقوم بقى شيئا لا أقوم بقى ومجرين بقى والله حسوسنين بقى ها الليلة هو صومرت وبري بوساءها أو شيء غير مذكورة أيوة شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا كسداس يا إلهي مشيئتيسا يا إرادتيسا أيا اقتضوتي أو حكمتي إن وح جرى لقدقو أو إنسان كجريتان لو سميه أبدا إلهي وحكب الله بأرنتها إيضا إنو أبو رأبهن آدم عليه السلام siduu ku abuurayna ilaahay nagama qarina waa noo sheegay dhulkaas ciidda ah carrada aad adigu ku dul joogsanayso ee aad ka faanfaanayso oo aadan ku dul fadhiisanayn inaad wax iska xajiso mooyee carradaasaa ilaahay aabbahen aadam ka abuuray innagana naga wada abuuray ilaahay annaga isagoo nala hadlaya wuxuu yidhi huwa aladii khalaqakum كاف الخطاب يرجع إلينا أنك على الله من تراب الذي كأبوري يعني أسل كينو تراب كان هذا أتكفها نيسان عيدنا أتكغط قادة يسان هدي واحد يكدع حتى واحد يكدع أتكزاهد يسان تاسا الذي كأبوري خلقكم من تراب للكاسا إلهي قيب كم إذا قبضوضي تبدأ روبو كدقي كبعدنا صور بو كدقي إنسان بو كصوري كبعدنا شيء عندكم قرنين تكنولوجيا كستي هرمر كستو أي قارين أين ولقد فهمين الروح ليلا با إلهي كو أفوفي ومن روحه هذا كهر بيويديين نبي محمد ومحيته روح وما هو الروح إلهي وجوابي ويسألونك يا محمد وحيكو ويدين عن الروح ولو سو قابي أرنت وحال قل وحاتلا الروح من أمر ربي جاي أمر كي سويه وما أوتيتم دديه ليذ المبسين من العلم إلا قليلا وحا علم أحجوكتان وحا إيمان دون إلى يوم الدين وشيء قليل أو ير ما بفهم كرتان روح ذا إلهي سبحانه وتعالى قلي أبهن آدم إنسانا سويا بإلهي كردقي طبدت نفس سوى رجلا كاملا آدم عليه السلام إلهي سبحانه وتعالى طبدت ضلع من أضلاعه فيره لف فيرها كمذا بإلهي أمنا حواء حتى كأبوري يخلق ما يشاء مما يشاء وحودون ربك أبورا أو وحودون كأبورا يفعل ما يشاء قدرة إلهي حدود مله وحسو حدين كريانا مله وحجوج ليانا مله وحرستاقي كرانا إلهي مله إذا قال أراد شيئا قال له كن فيكون آدم أبو ريتان كيسابة ساعة هيدبا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كوي بري جدا عيسى الليابي ويل سيكون لنكرا أو المكون لنكرا كلا لآنا إنسان كل منين يناغ إنسان كل من أو مريم عليها السلام يظن نين أرك شيء المعلوش هذا أوجل كرا أو ضبط هذا أوجل كرتا بوح لوين النقطة أم حاضر ولا يا بيسان بوله عيسى عليه السلام مثل كيسو كمثل آدم وآدم بحق إله كأبوري عيدا سإله كأبوري مركو إلهي سوري أو إنسان سوي أو صور كإنسان كن أهو فكان وأهذا سبحانه جل جلاله يفعل ما يشاء أمنا حوانا فرفرها آدم كم إذا بإلهي كأبوري كن أهو فاه وأهاتي
dabadeed abaweynkii halkaasaa bilowgooda u ahaa, aabbiyi hooye halkaasay ka bilaabmeen. qisadooda ilaahay waa nooga sheekeeyey fi lqur'aan hayra maa mara, in ilaahay uu jannada dejiyey oo uu yihi halkaa waxaad rabtaan cuna, dega jannada, uskun anta wazawjuka aljanna wakulaa minha ragadan xayثu shi'tuma. laakiin hal geed ka fogaada, geedka ha u dhowaanina. xikmad ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qadar ilaahay uu horay u qadaray bay ahayde, geedkii loo diiday bay cuneen. sababtay u cuneen ilaahay waa noo sheego, nagama qarine. shaydaanka oo weligii caduwa mubiin aha, oo ilaahay baa isna shaydaanka abuuray. mogtahay shaydaanku isma abuuray, huwa makhluuqu lilah. hadda ogow, shaydaanka naftirkiisa markuu ilaahay la hadlaya rabbi buu yidhaa. adiga rabbi sooma tirahayd? subxaana rabbii sooma dhahday? rabbi. shaydaankuna rabbi buu yidhaa. rabbi andirnii ilaa yowmi yubcaثuun. rabbi bima aغwaytanii. fahuwa rabuhu, isagaa abuuray. walaakinahu casaa wakafar. waa ka ilaahay uu leeyahy subxaanaه wataعala, kaana min aljini fafasaqa can amri rabbihi, mish can amri illaah. oo shaqaba isku lahayn, la, rabbigiisii abuuray ee rabbigii ahaa buu ku kufriyey oo daacadiisii ka tallaabsaday. dabadeed ilaahay subxaanaه wa tacala waa noo sheego, wuxuu yihi shaydaankaa cadow ka dhigtay. ina shayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa. war bani aadamow, shaydaan cadow buu idin yahay oo aabbihiini hooyadin buu cadow u ahaa. laa yaftinanakum الshayطaan kama akhraja abawaykum min aljannati yanzicu canhuma libaasahuma liyuriyahuma sawaatihima inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayثu laa tarawnahum ina jacalna الshayaaطiina أwliyaءa liladiina laa yuؤminuun. waa digniin ilaahayna siinayo in cadaawadda shaydaanku iyo duriyadiisu ay qadiim tahay, oy horeysay. cadow kale ma lihidin oo shaydaanka in baa ilahi leeyahay, ina shayطaana lakum caduw faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir. cadowgaa isaga ah baa u waswaasay labadii abaweyn, abuna aadama wa ummana xawaa. sheeke aan jirin buu u dhisay. wuxuu yihi waxaa geedkan laydinku diiday ma taqaana? maya ma naqaan. waxaa laydinku diiday laba shay oo labadaba aad jeceshihiin baad noqonaysaan haddaa geedkaa cuntaan. waa kow, inaad laba malag noqotaan, takuuna malakayni. halkaasaa dadka qaarkii waxay ka qiyaas qaateen, ama culimmada qaarkood, in cunsuru lmalaa'ika cunsur albashar ka fadli badan tahay. oo haddii ay malaa'igtu ayna basharka ka fadli badnayn, labada abaweyn taqriir shaydaanku kuma sameeyeen oo quruur ma geliyeen, oo ilaahay idiinma diidin geedkan ilaa an takuuna malakayni ma dhaheen. walaakina aladii calayhi yani ahlu الsunnati waاljamaaca in fadlu اlmalaa'ikati laysa calaa iطlaaqihi. bashar badan oo malaa'igta ka fadli badan baa jira, malaa'ig badan oo bashar in badan ka fadli badanna iyagana waa jiraan. sida ilaahay dadkaba u kala fadilay ayaa malaa'igtan ilaahay u kala fadilay. almuhim, inaad malag noqotaan oo laba malag isu bedeshaan, oo basharnimada ka tagtaan oo laba malag aada noqotaan, iyo inaad khaalidiin noqotaan oo ku waartaan oo abad alaabidiin. labadaas darteed baa laydinku diiday. haddaa cuntaan saasaad noqonaysaan. fadallaahumaa biquruuri falama daaqa الشhajarata badat lahuma sawaatuhuma watafiqaa yaksifaani calayhima min waraqi اljanna. dhar jannaday qabi jireen labadii aabbo. mar alla markay geedkaa dhadhamiyeen waa qaawanaadeen, dharkii oo dhanba waa ka dhacay. badat lahuma sawaatuhuma. markaasay markiiba caleentii geedka bay intay qaateen bay ma garanaysaa, caleentii bay watafiqaa yaksifaani calayhima min waraqi اljanna, si ay cawradooda ay u asturaan. ilaahayna wuxuu leeyahy haddaad shaydaan raacdaan sidaasoo kale u idin gelayahay, iska ilaaliya. almuhim ikhwaanii akhawaatii, qisatu bani aadama halkaasay ahayd. labadii aabbo markii ay cisyaanka iyo dembiga ay galeen ma aysan iskibrin sida shaydaanka oo kale. ilaahay bay u tadaruceen. rabbanaa dalamnaa anfusanaa bay dhaheen, waa qirteen inay dembi galeen oo dulmi la yimaadeen. ilaahay raxmadiisii iyo makfiradiisi ay weydiisteen. rabbigeenna waa kariim, waa raxiim. gafara lahuma wacasaa aadamu rabbahu fagawaa uma اjtabaahu rabuhu fataaba calayhi wahadaa. labadoodiina waa soo dejiyey, ila alardi buu u soo dejiyey,
had soo dejiye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu xukumay min baynihimaa inuu ka abuuro basharka iyo bani aadamka wabatha minhumaa rijaala kaiira wanisaaa. qisadii intaa ka dambeysay abuuritaanka insaanku wuxuu ahaa waxaad wada garanaysaan, nudfa min maain mahiinin baa ilaahay naga wada abuuray subxaanahu jala jalaaluh. maa mahiina oo mustaqdar ah, oo haddii thoobka insaanka ama dharkiisa ay gaadho uu markiiba iska maydhayo, ayaa insaanow ninkaagan isla weynow oo wax ismoodayow oo rabbigaa ku kibrayow, ma ka war haysaa horta in asalkaagaba laysku haysto oo culummadu ay isku khilaafeen oo ay qaarkood dhaheen nijaasaba weeye, qaarkood waxay dhaheen almaniyu mithlu lbawli waaba najaasaba weeye, qaarna waxay dhaheen warsaab ma aha, lama oran karo insaanku ilaahay baa sharifaye waa inkastoo makhrajkii isku meel yahay laakinahu lama oran karo waa najaasa waa daahir. bacd aladilana waa istidlaaleen oo nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam. laakiin hadda un kulley macrad oo fiqhiha uma fadhina meeshaane, waxaan arintaa aan usoo naqlinaynaa inaad ogaato inaad ha iskibrin, oo waxaad isku kibrin asalkaagaaba laysku haystaa in nijaasa iyo daahir waxaa tahay, oo haddaaba xaalkaagu sidaa yahay see rabbigaa isugu kibraysaa. ha iskibrininoo waxaad xusuusataa inaad yowm min alayaam aan nudfada aad ahayd. ha isqaadqaadinoo waxaad xusuusataa maalin maalmaha ka mida inaad ahayd xinjir yaroo dhiig ah oo ururtay oo ilma galeenka hooyadaa raximka hooyadaa ku jira, oo cid kaa warhaysa oo rabbiga aan ahayn aan jirin baad ahayd, ama nin ahow ama naag ahow, qof weyn baad tahay hadda, walaakiin saasaad maalin maalmaha ka mid ahayd. marka see rabbigaa ugu kibirtaa oo amarkiisa aad u jabisaa oo taacadiisa aad u culaysataa? waaba rabbigaagii kaa abuuray calaqa, khalaqa alinsaana min calaqa jamcu calaqatin damin mutajamidin caaliqin fi jidaari raxmi lummi baaba lagaa abuurayba sidaadaba. wa minhaa mudqaad noqotay, gabal yaroo hiliba, in yaroo cidaam ama lafaad ahayd, lafahaaga hadda ah oo laakiin berigaas yaryar baa ilaahay mudqadaada ka sameeyey, gabalkaa yar hilibkaa ilaahay ka sameeyey oo ka abuuray fasawaaha waratabaha jala jalaaluhu. saasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala haykalkaagan dhisan dhismihiisii hore lafahaasaa ilaahay ka sameeyey, aad berigaa u yaryar, lafaha madaxa iyo kuwa maaragta daamamka iyo kuwa magaranaysa luqunta iyo mafaasil 360 mifsal oo isku rakiban ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu sameeyey oo cidaamta. ilaahay subxaanahu wa tacaala cidaamkaaga ama lafahaaga hal laf oo qoroo sida maaragtay bir la shubay oo kale ilaahay waa ka dhigi karay. dabadeed noloshaadu istiqaamo ma yeelateen, ma aadan awood u hesheen inaad sida hadda aad u noosha aad u noolaato. haddii lagaa wada dhigi lahaa hal laf ka waran, luquntaadan hadda lafo badan baa ku jira, mafaasil badan baa ku jira, waa la tiriyey. oo hadda xataa culumtan casriga 360kii nebigu uu sheegay bay ku tiriyeen oo mifsal oo isgelaya oo laf walba lafta kale loo dhexaysiiyey ilaahay u dhexaysiiyey maada lasijaho in ay isxoqdo ka ilaalinaysa, waa min cindihi subxaanahu wa tacaala. waa ka hadda marka jilbaha iyo odayaashu ay ka sheeganayaan maaragtay dhacaankii baa dhammaaday baa laleeyahay. dhacaankaas dhammaaday meelka laba kastoo laf dhexdoodu ku jira, meesha unbay ka yar dhammaato shaqadeedaa badan mooye meelo badan bay ku jirtaa jirka. kan kuu sameeyey waa allah, waa rabuka aladii mana calayk. marka luquntaadan hadda ilaahay subxaana wa tacaala lafaha geliyey fara badan ee dabadeedna seedaha u sameeyey. ka waran hal salbi oo hal laf ah hadday noqon lahayd, dhinac ma fiirin lahayd? maada dhinac fiiriseen, maada kor fiirin karteen, geeskaana maada eegi karteen. haddii aad doonayso inaad wax fiiriso inaad kulligaa iswada wareejisay noqon lahayd. man facala hada huwa rabuk aladii rabbaaka jala jalaaluhu. abuuritaankaagu sidaasuu ahaa, ka bacdina dacfigaas ayaad ahayd, adoo gabalkaa yar oo aan waxba ahayn baa ilaahay caloosha hooyada kaa soo saaray. adduunkan aad joogtaa ilaahay ku keenay, waa adduunkan aad maqlayso ee adduunyada la yidhaah.
اسمها الدنيا ولكن تشمل أشياء كثيرة جدا أشياء فربنا كلن ستي وحويان ودل وعر ودرور وي وبير وي وبذوي يا ترينكرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها gurigaasoo ilaahay kuu sii diyaariyey ayaa lagu yeeray oo lagu keenay kan ku keenay ee adduunka ku keenay waa allah dalab adiga kaa yimidna ma aha waxa aad raadisay iyo fayl iyo waxaan layn la xirxira iyo waraaqa la samaystay iyo fiisi iyo baasaboorna lagama dalbin ilaahay baa iska kaa keenay istaqdamaka ilaa mamlakatihi karaman min cindihi wa ixsaanan baa ilaahay ku keenay subxaanahu wa tacaala dabadeed ha ku keenay tarbiyadiisa tahay ilaahay waa ku barbaariyey subxaanahu wa tacaala caloosha hooyada adoo ku jiraa baad noolaatay aada noolaatayda cunto iyo cabid iyo shay kaste ood u baahan tahayna waa lagu dhammaystiray wa anta janiinu fii batni ummik oo ilaahay wuxuu isku xidhay min cirka hooyada iyo xuduntaada ayaa ilaahay isku xidhay halkaasaa quudka kuu soo mari jiray oo cuntadaada halkaasaa lagu soo mari jiray zaman dhankaasaad ku noolay cid kaa warhaysay oo allah aan ahayn rabbuk ma jirin markii ay muddadaa caloosha hooyadaa kuu dhammaatayna ilaahay adduunkana kuu soo saaray ha ku soo saaree daciif baad ahayd xamaada kala garanay wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a wallaahu allah akhrajakum wuxuu idinka soo bixiyey oo idinka soo saaray min butuuni ummahaatikum kaafu lkhitaabi akhrajakum waxay shamlaysay insaanka oo dhan aayaddaa markay soo degeysay waxay ku soo degtay nebi moxamed sala allahu calayh waalihi wasalam isaga ayaa hadalka ilaahayna noo sheegay oo ilahay hadalkii rabbigeen qalbiga nebigeennu ku soo dejiyey nazala bihi aruuxu alamiinu calaa qalbika hada alkhitaab lirasuuli illah nebigaa lala hadlaya asxaabtiisii baa lala hadlaya oo ashrafu lkhalqiga iyo makhluuqaadka oo dhan baa lala hadlaya akhrajakum ilaahay calooshiina wuxuu idinka soo saaray adiganba moxamedna waad ku jirtahay min butuuni ummahaatikum caloosha hooyooyinkiin laa taclamuuna shayan waxba idinkoon ogey ajhala almakhluuqaati ah waxaad kala ogtiin idinkoon jirin haddaba cid ilahay ku inkiri karta miyaa jirta barofesoorada iyo adduunka iyo culimada waxaan la sheegaya teknolojiga iyo alaabtan iyo waxyaa kutubadan waaweyn iyo dadkan bartay ma way odhan karaan caloosha hooyadan baan kala soo baxnay laa taclamuuna shayan shayna idinkoon ogeyn wajacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay alsamca walabsaara walafidata lacalakum yaa bani aadama aad mudan tihiin tashkuruun inaad rabbigiin u mahadnaqdaan jacala lakum alsamca walabsaara walafidata alla kalimaadkaasi fududa carabka ku fududa walaakin qiimahoodu weynaa alabsaar jamcu basarin walasmaac walsamc alsamc walbasar walfu'aad qalbiga iyo caqliga iyo fahmiga ma wax sahlan ba samcigaaga iyo basarkaagu ma wax sahlan ba nicamkaa ilaahay khaas adiga kaaga dhigay in cid kale uusan kula wadaajinin bal hadda fiiri ilmaa fara badan bay la dhalatay maalan laba la wadaajiyey indha ma maqasheen oo la yidhi wallaahi khasaa'intii ilaahay indhihii baa ku yaraaday bal lama haye kulligood bal indhahan ha qaybsadeen ma maqasheen weligii dowladaha wax badan baa ka dhammaado waxbaa dhammada laleeyahay waa kana lama haye bal sidii hore looma qaybin karaa waxa la yaray ma maqasheen mise ilaahay basarkaaga khaas buu kaaga dhigay cid kale kulamuuna wadaajin dhagahaaga samcigaagana ilaahay khaas buu kaaga dhigay actaaka samca walbasara qiimahoodu intee waaye imisa maanta saysan lahayd kulligeen hadda inta meesha fadhida anigana kow aan ka ahaadee lacagta aadaan u jecel lahay ma tahay mise maa soo lacagta aad uma jecli yaan lacag jeclayn waa la iska aamusay maxaa jira lacagta waa la jecel yahay soo maaha caawa haddii lagu yidhaha lacagta ninteed waxa taal ma aha dhulka muggiisoo lacaga qaado oo labadaada indhoodu nasiib ma yeeli lahayd war bal ninkii yeeli lahaa gacanta kor u taag beri baan qolo saa ku iriyo laakiin hal il baan idhi mogta hal il marka hal il aan idhi mid baa yidhi anigaa ogol hal il waa iska bixinaya
oo waxaan maxaad dhulka mugiisoo lacagaad qaadan ahaade dhulka mugiisoo lacag haddaan helayo hal il waa baan ku noolaan karaa hal il waa tan kale waan iska bixinay xageed geen baan nidhi wuxuu yidhi dadkaygii baan u diray soomaalidu dad fiican wey lacagta xaggaan bay u diraan dadkoodii u diraan dadkaygaan u diri lahaa buu yidhi kaga dharjin lahaa waxaa yidhi labada indhood maya labada ma ogoli buu yidhi labada igama baxaan oo dhulka mugiisoo lacag qaado oo labada indhoodna sii maya ma yeelayo ayib meeqaad ka bixisay adiga kam dafacad imisaad indhaha aadan dhulka mugiisoo lacaga aadan siinaynin imisaad ka bixisay ma isweydiisay weligaa mise ma mudna inaad isweydiiso ma mudan tahay in la isweydiiyo mise in la isweydiin oo yaa ku siiyey allah ma majaanan buu kugu siiyey haa waxba kaa lagama qaadan maya laa ilaaha ila allah ma acdama nicam allah fajacalnaahu samiican basiira war kelimadaasi fududaa laakiin qiimaheedu foga oo ilaahay samci buu ku siiyey waxaa la yidhi insaanku nicmada uu haysto qiimaheeda ma garto ilaa hadduu waayo beri baa anigoo bas saaran meeshaan masar beraan wax ka dhigan jiray ayaa nin indhoola meeshuna markaa baska aan saarannahay waa ciriiri waa zaxma marka rag iyo dumarkii baa mutaladikiin aho saasay marka aad baan waxaan u dhibtaystay oo aad ii dhibaya yani naagahan shafkana wada saaray dhinac kasta naga soo galay baan waxoogay tadaayuq baan ku jiraa oo ciriiri baan ku jiraa markaasaan go weyn intaan isku daday baan yani waana ku qasbanahay baabuur kale ma haysto meeshaan wax ka dhigtaa iyo meeshaan deganahayn oo kale yar fogta dabada nin indhoolaha ayaa ag fariistay ama wuu fadhiyo meeshiisii kursigii ku xigaan fariistay markaasaan anuun isugeyn baan waxaan idhi ilaahay nicmo weyn buu ku siiyey sheekhow hadduuba ilaahay kaa qariyey balaayadan iyo fitankan iyo naagahan qaaqaawanba hadduu ilaahay kaa qariyey ilaahay nicmo ku siiyey ilaa anigu dhinacaa kama fiirsanine ninkii waa xanaaqay aad buu arrintaas uga carooday hadal adag oo culus oo aana iloobinna wuu igu yidhi wuxuu yidhi insaanku nicmada uu haysto ma garanayo qiimaheeda ilaa markuu waayo war ma anaad ileedahay ilaahay nicmu ku siiyey adigoo indho qaba aniguna indho ma qabo markaasaad ileedahay miya ilaahay nicmu ku siiyey adaa ilaahay nicmo ku siiyey laakiin garan maysid maya anigu waxaan ka hadlay fitanka ma indhaha ka qarsatid soo ilaahay qimdi kuma samaynin dabool soo ilahay kuma ma indhaha isku qabatid laa ilaaha ila allah waad iga garhaysaa baan adaa iga gartaaga ma ogid insaan laa yaclamu qiimata الnicami ila cinda fuqdaaniha xadiidkii baa wuxuu ku yimid can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam nin baa reer bani israa'iil ayuu ahaa caabid buu ahaa wuxuu ku cibaadaysan jiray meel jasiirad ahoo dhinac walbaba baddu ay ka xigto ayuu halkaasuu ku cibaaday shaqo kale ma lahayn 500 oo sano waxaan cibaado ahayn ma haynin bas yacbud allah ilaahayna ma qadinine maalin kaste rumaanka sanadkii mar baa la sugaa maalin kasta xabad rumaana ilaahay u soo saara il biyo macaanna ilaahay meesha ooga soo burqiyey biyahaasna waa cabaa rumaantaasna waa cunaa dabada inta kalena cibaado ku jira yacbud allah 500 oo sano shaqo kale ma yeelan ninkii wuxuu yidhi jibriil calayhi الsalaam oo nebiga u sheekaynaya wuxuu yidhi markii ninkaasi wafaadkiisii iyo dhimashadiisii uu soo dhowaatay ilaahay wuxuu ka baryey in nafta laga qaado oo ay ruuxdiisu baxdo isagoo saajidoo sujuudsan ilaahayna waa ka aqbalay ila alaan ninkii waa saajid buu yidhi wanaxnu nahbitu ila alardi waan aragnaa isagoo sidiisii u sujuudsan soo nin aad u fiican maaha yowma alqiyaama wuxuu yidhi fii cilmi illaahi weli ma imaanin xisaabtii ma imaanin walaakin ilaahay subxaanahu wa tacaala mawaaqic fara badan oo yowma alqiyaama dhici doona ayaa ilaahay sidii iyagoo dhacay oo kale nooga sheekeeya idaa waqacat ilwaaqica weli ma dhicin walaakin lixaqiiqati wuquuciha kaannaha waqacat dabadeed ninkii yowma alqiyaama bayna yaday illaahi baa la hor keenay ilaahay markuu hor joogsaday addoonkii
saalixa ahaa ee 500 sano shaqo kale oon cibaadada ilaahay aan ahayn aan yeelanin ilaahay wuxuu ku yidhi cabdii idhab fadkhul iljannata biraxmatii orodoo jannada gal oo waxaad ku gashaa naxariisteyda ku gal biraxmatii xogay arrintii baa la yar cuslaatay wuxuu yidhi ilaahayow waan geli jannada laakiin camalkaygaan ku galayaa ee adiga naxariistaada ku geli maayo laa ilaaha ila allah xogay waxaa la weynaaday 500 sano shaqo kale aana yeelanin adiga cibaadadaada mooye miyaan raxmadaada oo mid aan laga yaabo inuunan yani ama cibaadadiisu ay yarayd ama isagoon waxbaba cibaadaysanin khaatimo wanaagsan intuu ku dhintay ilaahay subxaana watacaala biraxmatii jannada kuwaasaan la mid noqonaya oo kale waayaan marka arrintii baa la cuslaatay wuxuu yidhi bal bicamali yaa rabbi camalkaygaan ku galayaa haddaba wuxuu isu bandhigay ninkaasi markii horena raxmad bay ahayd iyo naxariis haddana wuxuu isu bandhigay cadliga ilaahay ilaahayna waa cadl waana raxiim waana caadil rabbigan jala jalaaluhu ilahay waxaan ka baryaynaa inuu nagula mucaamaloodo raxmadiisa walaysa bicadli illaahi lanna cadli ilaahay hadduu kugula dhaqmo ma badbaadaysid sida ninkanba uu u badbaaday markii dambe biraxmat illaahi laakiin camalkiisii waa badbaadin waaye liannu cadliga ilaahay buu isu bandhigay oo cadliga ilaahay waa maxay de waxa waaye wax alla wixii ilaahay nicmo u hoosiiyey markii hore bilaash bay ahayd laakiin maadaama isagu camalkiisii uu qiimo u yeelay de wax alla wixii nicam ahaabaa marka qiimihiisii laga rabaa ila isagaa yidhaha waa xisaabtamayaan allah jala jalaluhu addoonkayga halala xisaabtamo ayib camalkiisi waa maqbuul sax miisaanka hala saaro kafat almiisaan ayaa la saaray camalkiisii 500 ahaa ee wanaagsanaa ee maqbuulka ahaa ilahay wuxuu yidhi aniga nicamkaygii markii hore majaanan bilaashka ahaa hadda waxbaan ka rabaa oo qiimaheedii baan rabaa qiimaheediina dee lacag meeshaasi ma taallo yowma alqiyaama lacag ma taallo waa acmaal iyo xasanaad xasanaadkiisa iyo camalkiisa saalix ahaa iyo nicamkayga ha laysu barbar dhigo waa min cadli illah ila isagaa dalbaya debe shay kaste yowma alqiyaama miisaan buu leeyahay nicmat lbasar ayaa la soo qaaday waxaa la saaray kifadii kale kii camalkiisii u saarnaba kii kalaa la saaray kifat almiisaan waa la yaqaan soo ma carabigan ku sheegay af soomaali maxaa la yidhaha af soomaali igu sheega may miisaanka waa miisaan laakiin labadiisa maxaa la yidhaha labadiisa qaybood ya labada kafadood miya labadiisa waa iska kafatayn yani nafs shay ayib alxamdu lillah almuhim mafhuum yani mafhuum waaye waxyaalaha kalimaad badan oo af soomaaliga anaan ku haynin baa iska jira وبناء على هذا كفدي مركي لا ساري نعمة البصر با وحي oo dhan wada liqday نعمة البصر ba waxay ka qiimo badnaatay 500 oo sano oo cibaado ah oo maqbuul ah oo mardiyo ah oo ilaahay aqbalay oo khalal kala lahayn oo khalti kala lahayn نعمة البصر ba wali 500 iyo ka badan sii rabta waliba marka bila xasanaad buu ninkii noqday هذا ولي لما قال النعم كي كلا إيو نعمة السمع إيو نعمة حاسة الشم حاسة الشم ما قوى قيمة هذا لا إله إلا الله وحاسة اللمس لما قال وحاسونا نعمة البصر بقى الله وذا تكتب طب هذا الإله جل جلاله محوير كان وحسنات موهر ما حسنات كان لهين يوم القيامة مصيره إلى النار نار تهلق أي مركب لو حسنات الجنة كوكا ماله نار تهلق لكن إله النار لما دونين ربنا كريم جل جلاله جواد رحيم لكن وحالة تسي يعني وحو متجتبة لا تسي خلط كاسا لغير سحي نار تعالى لطف نكي وملائك وحجوكت الله نغا كوريه الله نغا كوري إله نور بن كواس أن حريسنين مر الله مركي إلهي وأمره على طول إلهي بيبقى أقول دوانا يام بغفك أنت اسكو جبيان oo nawaasidiisa iyo foodiisa iyo gomadihiisa burburiyaan bay jahannamo ku tuurayaan kuwa uu leeyahay ilaahay ninkii abu jahl markuu yidhi falyadcu naadiya sanadcu zabaniya waa ilaahay nooma dhiibo kuwaas malaa'igtii baa daftay ninkii
yaa rabbi markaasaa ilahay yihi soo celiya hadda may baraday haa soo celiya dabadeedna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tusiyey nicamkiisii buu dul joojiyey wuxuu yihi addoonkaygow yaa ku abuuray adoon jirin aslanba yaa ku abuuray anta yaa rabbi yaa samciga basarka ku siiyey anta yaa rabbi camalkan hadda aad cuskatay ee aad ka dhigatay inaad jannada ku gelayso aslan yaa ku waafajiyey man wafaqaka lihada alcamal anta yaa rabbi meesha aad ku caabudaysay jasiirad maalixay ahayd oo biyaheedu wada cusbo yihiin yaa biyo macaankaa siiyey anta yaa rabbi rumaanka sanadkii mar bay soo baxdaa oo midhaheeda la cunaa ee maalin kasta yaa ku siiyey anta yaa rabbi walaysa hayruk idan wuxuu yihi ilaahay wuxuu ku yihi idan fadhab orod hadda jannada gal biraxmatii ku gal fanicma alcabdu kunta ilahay waa shakuur subxaanahu watacaala wa min acdami صifaat illaahi oo addoonku inuu la yaabo waxaa ka mida ilahay waa mahadnaqa ilahay waa shaakir yashkur man warku aad wax u tartay inuu kuu shukriyo oo kuu mahadnaqo la garay ilahay inuu addoonkiisa u shukriyo yashkuruhu wakaana allahu shaakira caliima man da aladii yuqrid allah in tuqridu allaha qarda xasana yudaacifhu lakum wayakfir lakum wallahu shakuur xaliim shukran sheekh allah yakrimak baaraka allahu fik wallahu shakuur xaliim shakuur marka fanicma alcabdu kunta buu yihi fanicma alcabdu kunta addoon wanaagsan baad hayday jannada gal biraxmatii ku gal annagaa cibro lanooga reebaya waa meesha uu nabigeenu leeyahy calayhi salaatu wasalaam addoonna jannada ku geli maayo ilaa biraxmat illaah camalna ninna jannadiisa camalkiisa ku geli maayo ila an yataamada walaa anta ya rasuul allah walaa ana ila an yatagamadani illahu biraxmati minhu marka walaalayaal asaasu liimaan waxaa weeye macrifatu rab wa shukruhu subxaanahu wa tacaala iimaanka marka qofkii la yimaada adduunyada muxuu ka helaya aakhirase muxuu ka helaya ama dunyaa sacaadadeeda iyo liibaanteeda iyo wanaageeda wallahi aladii laa ilaaha illaa hu waa biliimaan iimaan qof aan lahayn sacaado male mana liibaanayo mana wanaagsanaanayo wanaag kasta oo muuqda wanaag kaste oo qofka ka muuqda adduunyo kasta oo ka dhaldhalaasha si kasta uu farxad iyo raynrayn u muujiyo hadduuna iimaan lahayn waa beentiis hadda waxaa arkaysaan oo gaalada adduunka maaragtay loo dhiibay oo futuuxaadka ilaahay siiyey oo fataxna calayhim abwaaba kulli shayin looga dhigay waxa aad arkaysaan oo dhan waa been waxba kama jiro laa qiimata lahu waxay faraxsan yihiinna male waa xusni iyo murug iyo qalbi diiqa weeye lanna ilaahay subxaanahu watacaala insaanka isaga abuuray abuuritaanka ilaahay uu abuuray wuxuu ku liibaani lahaana allaa sameeyey dadku agtooda kama keeni karaan indhaha waxbay ku raaxaystaan dhaguhuna waxbay ku raaxaystaan sanka iyo xaasatu shamina raaxay leeyihiin madaaqa iyo dhadhankuna waxba ku raaxaystaa midina midda kale waxa ay ku raaxaysanayso ay dhadhansanayso ee wanaagga u ah waxba uu tari mayso maalan waxyaalaha indhuhu ku raaxaystaan dhagaha shaqo kuma leh mayla fahanteen mise ila maydaan fahme waxyaalaha indhaha geeda qurqurux badan iyo waxyaala qurqurux badan iyo dhegtu may ka faa'idaysa dhegtu kama faa'idaysan karto dhegtu waxbaa raaxay leedahay oo aswaada macaan iyo waxyaalaha naftu ay jeceshahay oo la dhegdhegaysto oo ma garanaysaa waxa oo ilaahay uu noo diidayna waa jiraa sida muusikada iyo heesaha iyo waxaas ilaahay ma jecla laakiin naftu waa iska jeceshahay iyadu inay iska dhegaysato soo maad gara aswaada macaan dhegtay raaxa u tahay laakiin indhaha shaqa kuma le walidaalika indhooluhu wuu ku raaxaysanayaa aswaada macaan oo laga yaabo isaguba inuu wax sood macaan yeesho laakiin dhagooluhu kama faa'idaysanayo kadalik yani ninka dhagoolaha ah waxyaalaha qurquruxda badan indhihiisa uu ku arkaya waana quruxsanaya waana ku farxaya
laakiin indhoolihii waxba u tari mayso. almaqsuud kulla xaasa oo xawaastaada ka mid ah waxaa ilaahay u sameeyey wax ay ku raaxaysato. xaasatu sham, cadarka iyo waxyaalahan udgoon iyo barafuunka iyo malaayiinta kala duwan waxaad ku kala soocayso indhaha ma aha, dhagahana ma aha. waa xaasatu shami wey. haddii ilaahay kaala tagana wax kuu soo celin kara male. dhakhaatiirta adduunka o dhan hadday soo tagaan kuuma soo celin karaan, xaasatu shami hadday kaa tago. marka barafuunka maanta adduunka ugu qaalisan ama cadarka ugu qaalisan haddii lagu siiyo ood cabta ka waran, oo wax wanaagsan ba mise dhadhanba maleba, dhadhankiisu waa khanaanba aad inta qaruurad yaroo inta la eg baa 5,000 oo riyaal maalin dhaweyd mid weydiiyo makaan joogayo meesha qorashi qaruurad yaroo inta la waa imisa 5,000 oo riyaal wuuba ii mariyey. aad buu runtii u udgoona, waa fiicnaa, cadar yaroo udgoon buu ahaa, laakiin waa 5,000 oo riyaal. intaa dhibicdaa yar halka sanka aan ku yar raaxaystay haddaan carabka saara ka warramo, waa wax khalaad oon fiicnayn oon dhandhan lahayn. lanna xaasadii loogu talagalay inay ku raaxaysata maaha, taasaa loogu talagalay, indhahana ma. waa la yaabintii hadda wuxuu ka wadaa wadaadka arrintan uu sheegay, arrin weynaan ka soo wadaa. waxaan ka soo wada waa maxay? insaanka qalbigiisuna raaxu leeyahay. sida ilaahay indhaha waxbay ku raaxaystaan, dhaguhu waxbaa raaxa u ah, sankana waxbaa raaxa u ah, iyo xaasatu sham, dhadhanka waxbaa ay ku raaxaystaan iyo waxyaalaha macmacaan iyo keega iyo xalwada iyo dhadhanka wey. shaqo waxyaala dhagahi iyo indhuhu kama raaysa, shaqo kuma leh. kulli shay qalbigana ilaahay wuxuu ku raaxaysto u sameeyey oo uu ku liibaano. insaankana meesha laga xukumo ee uu sacaadada ka helo iyo reeraynta iyo faraxa waa qalbiga weeyaan. qalbiga insaanka maxaa marka raaxada muxuu ka helayaa? waa dikrullah. ilaahay subxaanahu watacaala waxyaalahan maadada bashariga ahee dhulka shaqada ku leh qalbigu kuma raaxaysto. qalbigu caalam almalakuut buu ku xiran yahay, caalam almalakuut buu ku xiran yahay oo sirtiisu waa fooq, oo waxa uu ku raaxaysto waa calaaqatuhu birabbihi, rabbigiis intuu ku xiran. walidalik dadka waxaa ugu sacaado badan ascadu nnaas kan ilaahay ugu dhow waaye, kan ilaahay calaaqa la leh waaye, ka iimaankiisu uu qawi yahay, ee istiqaamo ilaahay intuu siiyey awqaaddiisa ku camiray daacada ilaahay, kaasaa raaxa ku jira walaysa hayruhu. inay taas tahay wuxuu nebigu noogu sheegay calayhi salaatu wasalaam. xadiidka iyo qur'aanka iyo sunanku aad bay arrintaas u tusaan. laakiin hal mithaal, hadda markaan meeshan ku kala tagno qof walbo innaga naga mida waa hurdo tegaya, soo ma? waa la wada seexday. dadka dhulka jooga ee habeen ku soo galay waa la wada seexday, dadkii waa la wada seexday, nin walba uu seexday. labadii seexatay mid baa soo kacay, ilaahay buu xusay, dakara allah, watawada'a waa weysiistay, wasallaa waa tukaday. nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam, insaanka hadduu seexdo shaydaanku wuxuu ku guntaa, yani ra'sigiisa ama madaxiisa wuxuu ku guntaa 3 guntimo. waa guntimo aan la arkaynin waaye oo min caalami alghayb ah, oo nebigu nooga warramay calayh salaatu wasalaam. wuxuu ku guntaa mid walba wuxuu yidhaha calayka leylun tawiilun farqud, habeen dheer baad haysatahay, iska jiif, iska jiif buu ku yidhaha. faidaa qaama alcabd, addoonku haddii kaco oo fadakara allaha, intuu hurdada ka soo kaco uu ilaahay xuso, inxallat cuqdah, hal guntin baa furanta. faidaa tawada'a, hadduu weysiisto tii kalaa furanta. faidaa sallaa, hadduu tukado inxallat cuqaduhu, cuqadkii shaydaanku uu guntay oo dhan baa kala furfurma. faasbaxa wuxuu waabariistaa ayiba nafsi nashiita, isagoo ayiba nafsi ah. ayiba nafs, naftiisu miday wanaagsan tahay, waa sacaado wey, oo nashiid ah, oo farxaan ah, oo aad iyo aad u faraxsan buu subaxaa waabariistaa. waa hadduu maxay sameeyo? hadduu camalkaa la yimaado, wuu kacay, ilaahay buu xusay, wuu weysiistay, wuu tukaday. salaadaa la tukadayna fajarka ma aha, salaatulfajri ma aha. haddaad u malaysay inay salaatulfajri tahay, dad badan baa saa markii hore u malaynayay. waxay a'immadu xadiidkan kulligood ku soo arooriyeen fii baabi fadli qiyaami lleyl,
qiyaamuleyl fadligiisay ku soo arooriyeen wailaa nebigu wuxuu yidhi wailaa hadduu saa yeeli waayo oo uu kici waayo oo uu tukan waayo asbaxa khabiiثa nafsi kaslaan naftiisu miday khabiif tahay oo xun tahay oo kaslaan oo caajisa ayuu waa beriisanay bilcamal الsaalix ayay labadaa ku kala tageen nina wuxuu waa beristay isagoo saciida midna wuxuu beristay isagoo shaqi ah waana camal weliba tadawuci ah oo aan faradba ahayn oo qiyaamuleyli ah fakayfa biاlacmaali اlأkhraa sacaadada ilaahay marka iimaan iyo camal saalix buu geliyey wax kale ma uusan gelin wallahi adduunyadao dhan haddii lagu siiyo oo maalka adduunyadao dhan lagu dhammaystiro oo si alla sida ay doonaysa ay kugu timaado oo iimaan iyo camal saalix aadan yeelanin ma liibaanaysid lan tascad inay taas tahayna waxaa ku tusinaya gaalada wax kasta la siiyey way isdilaan intixaar wax la yidhaha baa jira intixaar yani jumlada intixaar la yidhaha ama qofku inuu iski isu dilo annagu haddaan mujtamacaad islaamiya lahayn ma naqaano hadda intaan gaalada dhex gallay oon iyaga la daaqnay oo waxay cunayeen cunnay oo siday u dhaqmayeen u dhaqanay baybana soo galgashayoo aad maqlaysaa marmarka qaarkii qof muslima isdilay mooye wa ilaa maba jirtaba wax la yaqaanayba maba ahaynba gaalku muxuu isu dilaya wax kasta buu haystaa wuxuu isu dilaya dee waa shaqi sacaado ma haysto liibaan ma haysto wax kasta wuu hayaa laakiin liibaan ma leh beri ba annagoo jamaca ku baxnay khuruuj meel la yidhaha maraykan maraykanka waan ka tagnayoo seattle baanu ka tagnay vancouver magaalo la yidhaha oo ka tirsan canadaan joognaa baa nin duqa oo dhowr iyo 60 jir aan ka yarayn anagu saasun baan u malaynay de baa arkay 3 nin oo jamacada ka mid ahaayoo dharkoodii unbuu la yaabay iyo libaaskoodii iyo quruxdoodii iyo waxay xagee ka timaadeeno qadar meel la yidhaha baan ka nimido qadarba ma aqooninba wuxuu yidhi waa xagee sacuudiga u dhow sacuudi warkaasuu gartay wuxuu yidhi inaan idin imaadaan rabaa xagee joogtaan waxay u tilmaameen masjidkii aanu markaa deganayn marka galabtii ku xigtay waktigii makhribka ahayd ayuu noo yimid marka inay masjid tahay markuu arkay buu ka yar istaagay idan buu dalbay wuxuu yidhi ma soo geli karaa anigu markii hore hotel baan u malaynayay inuu masjid yahay markaan ogaaday hadda waa inaad ii idantaan ma soo geli karaa soo gal kursi baa loo dhigay xaggaa dambe salaaddii makhribkaa la adimay anigaa salaaddii dadka tujiyey qur-aankii buu dhegaystay bacda qur-aankii kelimad baa la jeediyey kelimaddii tarjama xaggaa loogu sameeyey tarjamadii markay dhammaatay ayuunbaa waxaan maqalay takbiir iyagoo allahu akbar maxaa dhacay ninkii wuxuu yidhi inaan islaamaan rabaa waa muslimaya dabadeed meeshii horaa la keenay anigaaba shahaadateynkii u laqinay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah af carabina waa ugu laqinay af ingiriiskana baryahaas inahaas waan ka barbartayba xogay baan yar joognay ma garatay laakiin qolooyinkii iga fiicnaa luqada ayaaba ugu laqinay oo labadiiba u qaray ninkaasi marka wuxuu yidhi wuu islaamay waxaa la geeyey hoos baa la geeyey meesha musqulihii waa soo qubaystay waa lasoo tahiray yani waxaan ka wadaa weysadiisii iyo kulli shay cishihii isagoo muslimuu nala tukaday bacda salaati alcishaa wuxuu yidhi halii ogolaada kelimad inaan jeediyo tafadal baa la yidhi noo jeedi kelimad kelimaddii hadda arrintaasi waa 2000 bay ahayd ma dhoweyn laakiin waxaan ka xusuustaa hadal aana iloobaynin hadalladiisii waxaa ka mid ahaa wuxuu yidhi horta anigu kelimadda ii ogolaada waxaad iigu ogolaanaysaan buu yidhi anigu khatiib baan ahay waxaan ka khudbayn jiray buu yidhi waxaan ahay buu yidhi qasiiska kaniisadda ugu weyn magaaladan wadaadka ugu weyn ee joogaan ahay buu yidhi yani qasiiska ugu weyn baan ahay ilaa 5 sano meeshaasaan ka khudbaynayay buu yidhi marka khudbada aad baan u aqaanaa waxaan rabaa inaan kelimad sheego tafadal kelimaddii wuxuu yidhi waxbaan idiin sheegay horta wuxuu yidhi aniga ilaahay baan ku mahadinaya maydaan ii iman maydaan ii soo qastin maydaan soo doonanin ilaahay baa naxariistiisa ila soo doontay waa hadalkiisii wey lanoo tarjamaya anaga tarjama fawriya lanoo sheegay wuxuu yidhi markaan idin warsaday oon idin eri imisaad joogaysaana waxaad tidhaaheen 4 bilood baan joogaynaa cadadkiinuna waa yaryahay
waxaan idiin sheegayaa buu annaga haddaan reer North America aan nahay yani Maraykan iyo Canada iyo North America la isku yiraahdo haddaanu nahay wax kasta waan gaarnay wax kastana waa haysanaa ilaa shay waaxid oo ah as-sacaada liibaan ma haysano ma عندنا sacaada sacaadada iyada ah waxay ku jirtaa buu yiri diintii anigu aan maalayay ilaa 60 sano ka badan aan ku jirayna kama run sheegin buu yiri laano ma aanan ka helin sacaadadii ma aanan ka helin waxaan idiin sheegayaa buu yiri inta yare hadda aan muslimka noqday aan la joogo ayaan sacaadadii dareemay oo dhadhamiyay laakiin wuxuu yiri cadad diinuna waa yiri aniga kumaan kun aniga ila mid ah jira oo liibaantaas deydayay waqtiga aad sheegteen naguma filla cadadkiina naguma filla annagii buu dib tashkiil noogu bilaabo yiri waa inaad 4 bilood waxaad sheegaysaan man 4 sano naguma filla wana dala joogtaan maxay yeelay waxaan hubaa buu yiri boqolaan anigoo kala ah kumaankum buu isticmaalay kama akhbarana al-mutarjim آلاف من مثلي أو يبحثون عن السعادة جوجا بوري سعادتنا ملا إلا بالدين مركا نينكا كان إلهي وحو كسيها ومالين واحد سهلة وحوين هايستا وحوين بعد هايستا والله واحد هايستو إن يسن دول كواوين يسن هايسن خزائن تودنا لقم حلو ستوريو تودا ميالان الإيمان هو السعادة هدين لأوكي هي إيمان كوحا لقيه ليو فوائد الإيمان في الدنيا dadku haday garanayaan leena sida ilaahay noo sheegay dadka intiisa badan ma garanayaan walakin akthar an-nas la ya'lamun walakin akthar an-nas la yu'minun kuwa ilaahay waliba wax siiyay ee adduunyada gacantooda galiyay baa ugu jahli badan oo adduunyadan ay ku mashquuleen ma dareensana laakiin haday og yihiin iimaanka maxaa laga helaa iimaan hadii mujtamacu uu dhex yimaado mashaakil ma dhacin dadku iyaga iskarsoori lahaa dadku waxa ay ku xisaabtami lahaayeen oo ka baqi lahaayeen qayb aan habeen iyo maalin ka maqnayn ilaah subhanahu wa ta'ala mugdi iyo cadeen isugu mid tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala banaan hadii la joogo hadii guri lagu jiro ay isugu mid tahay bay muraaqabayn lahaayeen dabadeed kaamerooyin iyo wax dadka lagu ilaaliyo looma baahnaadeen raadarada iyo hadda waxa meelahan ay dhigeen iyo wadooyinkan iyo alaabtan ay dadka ku kala lagu kala yani ahkaamta ama qawaaniinta la sameeyay lagu muqooninayo lagu qasbayo looma baahdeen qofku isaga mudeecu noqon lahaa nabigu wuxuu nooga sheekay alayhi salatu wasalaam inaad maqasheen waa laga yaaba inaydan maqalo caawid ku cusub tahay waa laga yaaba waligeen ma maqasheen maxkamad loo dhisay oo loo sameeyay oo qaadi kala xukumay laba qof oo isku haysta shaygan adaale iyo adaale ma maqasheen maxaakimta adduunka oo dhan waxay u dhisan yihiin inay kala fasliyaan oo kala saaraan laba qof oo isku haysta arrin tan oo kala la isku haysta biyaha baa la isku haysta mid wuxuu leeyahay anaa leh midna wuxuu leeyahay malihida anaa leh marka qaadi baa imanayo oo arintii baarayo oo waxa nihayadii noqonaysaa inuu mid u xukumo kan kalena uu yiraahdo iska tag waxaad leedahay ma jiraan maxkamad kasta arintaas ay u dhisantahay arintu say doonto ha noqoto ama taa ha noqoto ama xuquuq maali ha noqoto ama cirda ha noqoto ama waxay doonto ha noqoto waxay doonto ma noqoto ama daman laakiin waa un laba isqabsaday xaqii lagu kala saaray li hada li wa hada li nabigu min fawaid al-iman wa thamaratihi wuxuu sheegay laba nin inay isku qabsadeen shay umid walba leeyahay adiga leh iyo adiga leh oo arintoodii ay maxkamad gaadhay fi hadithin sahih nin baa dhul lahaa dhulkii uu lahaa buu mid kale ka iibiyay kii dhulka iibsaday markuu bilaabay inuu dhulkii hagaajisto oo uu qodaalkii bilaabay ayuu wuxuu ka helay kanzi dahab ah kanzi waa kayd weyn weeye oo aad u far badan weeye wala ربما يصل الى آلاف الكيلوغرامات يعني aad u badan weeye يعني isagoo faqiiraho waxba aan ahayn oo dhul yar iska leh ayuu marqura wuxuu fi luqati casrina isu bedelay milyoneer aad u far badan wuu haduu qaato yani walakin waa saaxibu iimaan marka iimaankiisii thamaratu iimaani maxay keentay
inuu yidhaa maya alla ilaahay dahabkan anigu malihiye ninkii dhulka lahaa ayaa iskale. waa soo qaaday jaratu dahabkii isagoo wada ayuu ninkii dhulka uu ka iibsaday buu u keenay. wuxuu yidhi fulaanow dhulkii aan kaa iibsaday baan ka helay kanzigan dahabka qaadaadaa iska lehe. kiina waa saaxibu iimaan ma odhan wallahi waa runtaa waa nin loobeeyey anaa maaragtay waa mahadsan tahay ma odhanine wuxuu yidhi maya dahabkan aad sheegayso haddaaba ii kowa ma maqal mana ogeyn ana bictuka alarda wamaa fiiha inay dahab ku jiro in kalena ma ogeyna adaa lehe qaado. war ma aha melihi anigu shaqana ku melihi adaa lehe qaado. labadii nin waa isqabsadeen haadaa lak wa haadaa lak. isqabsashadoodii waxay gaadhay maxkamad lanna nebiga saasuu ka tacbiiriyay wuxuu yihi fataxaakamaa taxaakama maxaa waaye ma hiya maa taxaakama maxkamaday aadeen wey. maxkamaddu geed hoostiis bay noqon kartaa. maxkamaddu ninay u tageenana kale xukun dhahin bay noqon kartaa. nin bay u tageen ninkay u tageenna waa saaxibu iimaan ma odhan wallaahi arrintu hadday saas tahay dahabkan waa ma garanaysaa waa hanti qaran weeye iska socda idinku ma uusan orane. qadiyadii buu dhegeystay horta nin walbaba qadiyadiis buu sheegay saas ahaa. wuxuu yihi horta wax caruura ma leedihiin. arrintiiba waa ka baxay inuu kala xukumo waa ka baxay. wuxuu yihi wax caruura ma dhasheen. haa anigu wiil baan dhalay adiguna gabar baan dhalay. wiil baad dhashay adna gabar baa dhashay soo maaha alalehay gabadha iyo wiilka isu guuriyey dahabkaana ku nafaqeeya oo ku infaaqeeya waxna sadaqaysta wadhaba taga iska taga wax kale oo ku kala xukumu garan waay. فوائد الإيمان متى مسماه ما أنت يا ساس يلي لها يا أنتو كنز ذهب هلو نكي يقولك أما قرية أو كقاتي أما كريستي ولا تقرأ ولا لا ألاب تنا كالهم تيقاضوا إلا صاحب إيمان مركو دتكو هدي إيمانك إيه فوائدي سؤجيهين جيل كسعادة بدنا جيل كسحابة مجري رضي الله عنهم حي سعادة محيكو هلين بالإيمان. هذا أوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم دردارن كيسو ما هين ورددي هو أعماشين واللبا أما هو هناك سنة أما حماته أعماشين حن قادورات يوحي لها كبائر الذنوب كان كدعا كي كوها دنبقاس وين حد كلي كدعا إيمو أو أنكو طهيرو ورقي لقم الشيخ النبي ما نقرن وحوير هاي سأستره استغفار ولا يستغفر فليستتر ولا يستغفر ربه ربك دم بدافع هو يديستو هاي استغفر. لكن ما حد حجرتي وحد حجرتين أمناك صحابئة قوة الإيمان مش أقاري فيه. قوة الإيمان ضعف البشرية وخلق الإنسان ضعيفا إلهي وخلق الإنسان ضعيفا آية سوحيت من في باب الشهوات والله يريد أن يخفف عنكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أوردت في مقام الشهوات. مركا إنسان بني آدم وهو مسكين يقع في هذا. صحابي تمر ابني أي قبر ولا قل حسناتي شيطان كبا ويمن وسوس له والله تمر انت كفي عم بقودها كجرا قوده مركو قبر دي بكبود اتق الله. ولكن قوة الإيمان مركي بوركي مركي إيمان كير مركي سو أردها سمردعين استغفار ياكو فلان إنه استغفار ميل سعر سو أوي أبو بكر بقول لك وحكى لم يهجر أنا تقول ما نكشي واحد ما أنت استغفار استكأسره ميل إلى النبي قوته عليه الصلاة والسلام وأمرك يسود دقيسو وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أو إنك سواشي ويدي وانقا وادمق الشيء أيضا سئلة يا رسول الله ألي خاصة ما ناس كلك لي ما لأمتي كلها إن الحسنات يذهبن السيئات كوي كلوات مقشين يعني يقول حدك قلي نن ها المرأة من جهينة
qisataha mashhuura nebiga ay u timid dhowr goor uu nebigu ka jeedjeedsaday markii dambe oo ay dee isku qirtay oo ay tiri yaa rasuul allah ana xubla min azina waxaaban uur oo zinaaban wadaaba waxaad celin karta maaha nebigu marka waa ku qasban yahay inuu xukmiga ilaahay tanfiidiyo wallahi inuusan jeclayn nebigu sala allahu calayhi wasalama marnaba kuma faraxsanayn mana jeclayn xataa waxaa dhacday nin rajmi lagu xukumay oo sidii loo rajminayay intuu cararay ay asxaabta intay ka daba tageen oo ay dileen uu yidhi maxaa isaga dayn weydeen hadduu idinka cararay warninka maxaa isaga dayn weyden gabadhanna markiiba inta la xidhay la qabtay oo zinsaano lagu quflay oo icdaam bay ku xukuman tahay halkaa lagu hayo hala ilaaliyo maaha gurigeeda ha iska tagto wallaahi haddaynay soo noqon inaan laga daba tageen oo askar daba tagtaa aysan jirin oo wax mutaabacaynaya iyadaa iskeed u soo noqotay iimaanka intuu la egi marka ilmihii dhashayna haddana waa celiyey soo nuujiyo soo celi 2 jir markuu ahaa oo weliba ay kisra yaabis ay siisay kisra ay siisay yani xabad khubsi ah rooti ay siisay oo ay ku tusinayso inuusan caanaheeda hadda u baahnayn kadib baa xukmigii ilaahay lagu tanfiidiyey فكان رسول الله رحيما صلوات الله وسلامه عليه هذا هو ثمار الإيمان qofku inuu aakhira ay la weynaato oo cadaab alaakhira marka su'aal baa la isweydiin karaa gabadha noocaasa maxaa ku kalifay arrintan miyaynu ogeyn hadday istikfaar la timaado oo wasiyada nebiga intay qaadato oo iska istikfaarto oo is asturto oo ay iska joogto wax dhibaataa ku dhici lahaa may arrin baa jirta muhima oo waa maxay towbada iyo istikfaarka waa min caalam alghayb adigu waa tooba keentay istikfaarna waa la timid wacdigii ilaahay iyo ballantiisii way jirtaa inuu ilaahay addoonkiisa uu towbadiisa aqbalayo laakiin wax caddaana ma haysid caddayn ma haysatid laakiin haddii xadka lagugu oofiyo fahada kafaafuk hada qasaasuk wax kale aakhira lagaama rabo marka iyadu waxay leedahay arrintaydu intay shaki noqon lahayd towbadayduna intay khalal intuu galo hadhow aynan asixi lahayn oo wuxuu dee bashar baan ahay waxaan ogahay oo cad oo anaaru jahannama aan kaga badbaadaan yeelaya taasaa ku kalifaysa hada huwa thimaaru liimaan dadku hadday og yihiin fi dunya iimaanka waxaan ahayn ma qaateen wallaahi sacaadatu linsaani fi dunya walaakhira huwa aliimaan iimaanku usra iyo qoyska waxay ku liibaanaan oo ay sacaado ku helaan waa biliimaan haddii iimaan laga helo mid walbaba ninkii iyo naagtii isqabay mid walbaba meel kale ka cabsaduu leeyahay wax uu xaqiisa uu uga tanaasulo isagoo arkaya raqbatan fi llaahi buu leeyahay ilmaha iyo tarbiyadooda waxay ku tarbiyeeyaan iyo meelay ku xidhaan bay leeyihiin falaysa mila aliimaani shay iimaanka wax la mida male iimaankaaseen ku kobcin lahayn oon ku dadaali lahayn thimaaru liimaan haddii adduunyada laga hadlo lama koobi karo laa cadda laha walaa xasra laakiin thawaabka iyo miraha iimaanka laga helayo fi dunya waa shay basiita markii loo bardhigo waxaad aakhiro ka helaysid aakhiro iimaanka waxaad ka helaysaa allahu akbar كلمة سبحان الله سو سهل معه بل كل واقع سبحان الله ما ترهن سبحان الله شيخ ما ترهدو سبحان الله قولوا سبحان الله إذنك أجر بها شان أنا أجر بها له من دل على خير فهو كفاعله إن شاء الله الله يرزقنا وإياكم كلمة سبحان الله واحد كتري بالإيمان oo de haddaadan iimaan lahayn ilaahay kuma siiyeen kelimadda waa wax weyn laakiin qiimaheeda hadda ma ogid waxaa la yidhi sulaymaan calayhi salaam oo mulkiga ilaahay uu sulaymaan siiyey nabiyullahi sulaymaan ciduu siiyey male waxaa mulkigiisa iyo taskhiirka ilaahay uu siiyey ka mid ahayd dabaysha ayaa qaadi jirtay sida diyaaradda dadka maanta ay u qaado waa dabayl aan la arkaynin walaakiin isaga iyo junuuddiisa waxa dhan bay xambaarsan tahay oo meesha daruurtu ay maraysaa oo meel bil loo socdo ayay gelin ku tagaysaa kaga soo noqonaysaa rawaaxuha shahrun quduwuha shahrun wa rawaaxuha shahrun wa min taskhiir illaahi caza wajalla ilaahay u taysiiriyey bay ka mid ahayd waxaa la yidhi marka nin baa wuxuu arkay iska meel baadiye jooga oo ama beer iska qodanaya
ayaa wuxuu arkay Sulaymaan iyo junuudiisa oo dabaysha saaran oo dushiisa maray oo ila guurayso markaasuu subxaan allah yiri baa leeyahay subxaan allah dabadeed waxaa subxaan allah uu maqlay Sulaymaan calayhi salaam uu soo degay dabayshii amar buu siiyey soo dejiyey ninkii buu meesha ugu yimi wuxuu maxaa tiri waxaan bari subxaan allah wallaahi waxaan kuu sheegayaa subxaan allah hadii aad tiri ayaa mulkigayga aniga maaha mulku aali daawuud oo dhan ka fadli badan aniga iyo aabihiisna wax weyn baa ilaahay siiyey waa ka ilaahay yiri wa alanna lahu alhadid birta hadda biraha ilaahay maanta yani teknolojiya horumarka ilaahayna siiyey waa ka ilaahay birta noo fududeeyey oo wax kasta bir laga samaynayo oo baabuurta iyo diyaarada waxa dhan laakiin waa tu farsamo ah ilaahay nabi daawuud wuxuu uga dhigay bir oo kasta oo dhanba sida cajiinka oo kale alanna lahu suu doonu u laalaabaya وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحسنكم من بأسكم إلهي داود وحسي إنه أنتم استاغوا وذكر إله قبته أي شنبره بوره كذب الرواقان مال بورو بدن سبحان الله بيكذب إلهي بقوا حيودي كل يوم اذكر عبدنا داود إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والعشي بوره كذب تسبيح صدا قوة الإيمان كي قلنا يا مالفيري سبحان الله مركاتير بوره دن كذب سبحان الله والطير محشورة له شبره دن صور الله ويري كلمة دا أتكون واخذة سبحان الله آتري أيا ملك آل داوود ونبك قيمة بدن هذا بآخر واحد هليسة سبحان الله بعد أركيسها مركا قيمة هذا الحمد لله قيمة هذا أركيسها الحمد لله كل فضوضة لكن إلهي اكتيس كوينا والحمد لله حيث سبحان الله الحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض كلام خيالي ما هو كلام واقعي لكن هذا ما أركيست كو يروا جماعة خارجين كسوا نقضي بري ومساجد كينا أيوة حوليه وإس كسوا أكفر استوحان بل وحي سوف يستين أفيريسي وحوليه هذا سبحان الله والحمد لله دولك يعرك مقودي بوحيينه هدي لغو سيو oo lagu iraaqado lacag hal ugu bedelo intee dhigaysa intee keenay afrax marba intee keenay hada banki ku qaada male sanduuqad ku ritid male intee keenaysa dhulka ay cirka buuxsamay dhalinyaradi kale saa kulay wallahi waa runtiis wuxuu yiri iska sug meel deeqdaa jirta oo jannadi ah waa kalaamu saxiix meel deeqaysa jirta sax weey haddaad subxaan allah walxamdulilah tiraahid adigu waa iska tiri laakiin dhulka iyo cirka mugood baa buuxsamay waana lagu siin laakiin meel deeqda hadda halkan laguma hayo maada taxamaluha marka fawaaid aliimaan fi alaakhira waxaad ugu tegi doonto ya xisaabi kara laa ilaaha ila allah kalimat laa ilaaha ila allah kula sahlana ilaahay agtiisa ka weyna waa xadiidkii wuxuu ahaa ninbaa yowma alqiyaama ilaahay hor keenay markaasaa waxaa la yidhi addoonkan soo maaha soo saara bal camalkiisi waxaa la soo saaray 99 sijili diiwaan maxaan odhan karnaa yani waxa lagu qoro acmaasha lagu qoro waa iska diiwaan soo maaha ma la fahmay horta waxyaalahan diiwaanka oo mid walba diiwaan walba wuxuu la eg yahay mada albasar ishu intay ku dhammaataa oo kulli maxaa ka buuxa sayi'aad acmaal xunxun baa ka buuxda waa acmaal xunxun oo wada sayi'aada oo haddii lagu daayo jahannamo geynaysa waxaa la yidhahay miisaanka u saara waa 99 sijili kullu sijilin mada albasar walxadiidu saxiix waxaa la yidhi wax xasanaada ma leedahay yaa rabbi maya ilaahay wuxuu yidhi maanta lagu dulmin maayo بطاقة ير بالله صو صار بطاقة حديث استعمل لفظ البطاقة ورق ير بطاقة ير أو أي قرنتها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أي قرنت مركز إلهي ميزان ككفذك لهلا صارة هذوك يحوي إله وتاني محيك تريس بطاقة ير سجل مذو البابا مدى البصرية أو سقاشا سقالة إنك لن تظلم اليوم
haddii la saaray bidaaqadii yarayd baa ka xoog badatay oo wada liqday 99 shii oo dhan walan yafqula maca ismi illaahi shay ilaahay magaciisa wax la culus noqon karaa ma jiro hada min fawaa'id aliimaan fi daar alaakhira ama fimaarta iyo wanaagga aad helayso dee ilaahay jannu ku geynaya jannada wanaaggeedana ma idinka sheekaynaa mise waqtiga waa dhammaaday haja qadam waa dhammaaday waqtigii furso kalaan ka dhiganaa soo maha muxaadaro kalaan ka dhiganaa jannada haddii waa laga sheekaynaya la yidhaha ilaa fajarkaan fadhiyaynaa ka bacdina ma dhammaanaysaba lanna ilaahay jannada markuu ka sheekaya wuxuu ina hada la risqunaa maa lahu min nafaad ina hada la risqunaa maa lahu min nafaad maba dhammaanayaba ilaahay isagoo qani ah oo naga deeqtoon oo noo baahnayn ayuu na jeclaysiiyey oo jannadiisa noogu yeeray oo na tarqiibiyey oo na tirtirsiiyey oo yidhi halkaa taa u shaqaysta limithli hada falyacmal ilcaamiluun waxay isku xidhaan culimmadu laba qaso waxay dhaheen nin baa duq ahaa maalqabeen ahaa baa maxaa la yidhi ka dhintay laba nin buu ka tegey labadii nin xoolihii markay qaybsadeen oo ay nus iyo nus u qaybsadeen mid gaal buu noqday labadii midna muslim buu noqday kulli waaxid waxaa ku soo hagaagtay 4,000 oo diinaar kana 4,000 oo diinaar kii 4,000 ee diinaar ee muslimka ahaa kii gaalkii 4,000 wuxuu ku gatay laba beeroo waaweyn kun kalena islaaxeed u geliyey iyo siduu ku abuuri lahaa kun kalena khadamkii ka shaqayn lahaa kun kalena wuxuu ku gatay guryihii iyo qusuurtii mid walbaba kunkaa uu bixiyey kana wuu sadaqaystaa wuxuu yidhi anigu jannada ayaan ka iibsaday jannada ayaan beera ka iibsaday kunkanna khadamka jannadan ku iibsaday adigu qusuur baad ku dhisatay kunkan soo ma ana qusuurta jannada khadam ana khadamka jannada المهم 4,000 ninkan waa bixiyey lilaakhira kana 4,000 lidunya labadii nin marka ninkii adduunyadii ilaahay waaba yani barakeeyey oo waa u barakeeyey oo waa ka qisadu marka suuratu lkahfi bay ku timid baa la yidhaha واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر مهم شيء كذا دحدو مرتي إنه كنا يري ور إلهي أكو كفرن أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من علق ثم سواك رجلا ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا إلى آخر الآيات وحال إلى مركز لبدي إن سيدي بكوكا لبنتينو إلهي سبحانه وتعالى لبدو دي منا جهنم وقالي منا جنة وقالي كي جنة قالي ولو نعمي وحل وحي إلهي سبحانه وتعالى وأهر مرسدين ولا سي dabadeed ninkii oo jannada ku jira oo iska barwaaqaysan oo naciimkii ku dhex jira ayaa xusuustay ninkii kale oo wuxuu yidhi waxaan rabaa mid qariinaan lahaayoo fi dunyaa ilaahaad haddi jiro oo odhan jiray maakhire waxaanaad rumaysan tahay ninkiina arko ilaahay waa istusay baa layidhi hadal baana dhexdooda maray kamaa kaana fi dunyaa kan xagee ku jira fii jannaati cadnin tajrii taxtaha alanhaar kanna xagee waaye qaacu jahannama walciyaadu billahi buu ku jira dabadeed dhexdoodii baa hadal maray suuratu wasaafaat bay ku timid marka bacdu ahli lcilmi oo labada qisa way isku xidheen bacdu ahli lcilmina waxay dhaheen labada qisa shaqo iskuma le walaakin fi lxaqiiqa waxa weeyaan ama ha isku xidhnaadeen ama yayna isku xidhnaanin maa qadamtahu fi laakhira tajiduhu waxaad hormarsatay aakhira ayaad helaysaa noloshaas jannada ahee wanaagsan ee naciimka iyo barwaaqada ilaahay subxaanahu watacaala ku siiyey wuxuu kuugu dari doonaa nolosha caadiga ah wuxuu kuugu dari doonaa mulki iyo boqortooyu kaa dhigi doonaa adduunka boqor hal nin unbaa noqon kara magaaladan hal madaxweyne keliyay leedahay
la madaxweyne lagama ogola soo maaha magaalada kalena sidoo kale waddankan sacuudiga oo kale hal boqor baa jira ka waran jannada dadka gala mid kasta ilaahay boqor buu ka dhigaya gabdhaha galana mid walba ilaahay boqorad buu ka dhigaya leanna ilaahay agtiisa ciriiri ma yaalo وإلا إلهي مدهين وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وهين وملكا كبيرا فأنت ملك مملك باتعي إلى أكتيس نعرير ميال جنة هداد قشو هنا اسكرها راح كلية ما هو عنتي عبدي وحاسي ما كلية بقر باتعي مملك مملك هذا ننك ودرجير في الجنة له مثل الدنيا 10 مرات طبنقور أدونك لا والله طبنقور أدوية الله صلى الله عليه أيوه في الجنة هليا أردها أيضا أنا عقلك هو بندقين أي واحد بندقتها قدرة الله هنا كل علاجنا لأن أدوية أنت إلهي كاتو سيكو فلان إنها تكاع عبر قادته بركة غيبيات كلا نوجو الرمي أن أراك في الآخرة إله آياتها أدوية كل حصص يعني آياتها الدنيا إلهي مركو نوغشكي وحويرا يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون لقاء رب وغيب وحاجة الذي آخر الذي كشكينا وغيب لكن آياتها الدنك أدركتان بائد كفرا عبرائد كفرا مركو والله ليلة توفيق الله أنه فجيو الإيمان ليس مثله شيء سيدي مرك إلهي إيمانك والنسيه كد ذالا إن إيمانك نو كبعو أو نو كردو أو أن أغمر مالنو أو أن أغفايديسنو إلهي هنغدق كو كفايديستا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إيمانك إنات خير ككسبته وإن دداشو إلهي إيمان واكسي لكن ددال لا إيمان من حمل الله إلهي باكسي مؤمن كادق سو ماها شنت صلاة كددان وجماعة عدد كددان ومر مركا قاركيش إناد إسعنانته محمد بل ولا الروا إسعنانه وواحد لو تكبيرة الإحرام سيئنا في كرتا وصلاة الجماعة سيئنا في كرتا وسيبه هردئ إلى كرتا وهدي إلهي شنت صلاة كوافجي تدبع إلهي وافجي وولي قد كتغين weligood aan la arkin iyaga oo aadaanku ku dhacay masaajidka khaarijkiisa ومنهم والدي رحمة الله عليه شيخ علي سوف بكم أنا أنت أركن ما رأيته في حياتي ما أركن سقو أنت اللي قدمي آذان دعي مساجدك بنان كيس جوجا ما أركن أنت كل وعقل يستي تضمن بإله نعمة ذا سي هذه إله نعمة ذا كسية وأرفع عن هذيك الكود ذا لأنها سانوته أدن لا أدمي أو ذا المسجد كجوجنا هيل هذيك له دبال هنقولنه إقامة كورتك عمر كدتك أنت إقامة مقلان سوع الله كم نقولن هذا كم نقطة واحد في عنتها أيضا محمى لكن جرجها كنت كنن المسجد كنتك وهذا الكلام خاص للرجال قبله يجرجوا ذا مسجد هكذا مسجد هكذا وصلاة وقت كذا هدو كذا هدي إلهي شنت صلاة كوا فجي أو أذهجي شيء أو أذكر حسي أو سيدي إلهي جعل أتكدكتي كرسو أو قيام الليل بل أنت أنا حتى عاو ما يشوفنا أنا صدر دارنا بالقيام قيامكم كد لنا قيامكم تكنا وقيام هدات كتكتم حد كفايدة ستي في هذه الدنيا ماذا استفدت واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل مؤمن كشرفتي هو قيام الليل مركا الحمد لله وحكون في عنها يعني عاوة يعني دادان اسكو ملسح حنا اللي ما جوغان دي داد كان اسكو ملسح حنا جوغان وحكى لي لها لكن على كل حال ما يفهمت ور كانوا جيد ما يفهمت ور كانوا جيد الله ناستر إلى هو من ناستر الله نسي استر لكن قيام الليل كأنك تجي قيام الليل كما أها رمضان كلي اللي تكذو معه قيام الليل هدي لقيتك الصبحي أذو عريسان باسوك عيسى هددك مقالة الصبحي سماء كسود عريسيين لبا يسود القادة يسين يسجرين بابور تسيد دبك دحك دح دع ماركت هي مشاكل كذا مدو البعض سنك وسارنتها لأنه قيام الليل ما تكننه خبثي نفتي حميد النبي وشيء بسنك وسارن سعيد معها
laakiin hadduu qiyaamu leyl tukado waa saciid. wa min sacaadatii waxaa ka mida ludfigiisa iyo bashaashadiisa iyo dulqaadkiisaa badnaanaya. marka qiyaamu leylka aan ku darsano. salaatu duxaa wax weyn weeye. salaatu duxaa jirka insaanka 360 xubin oo mid walba sadaqa laga rabay, adi 360 riyaal maalin kasta ma sadaqaysan kartaa? waa adag tahay soo maa. marka wuxuu yidhi nebigu tasbiixdii waa sadaqataa, laakiin intaasoo dhan waxaa kaa kaafinaysa buu yidhi 2 ragco oo salaatu duxaa aad tukatay. ka war ninkaan salaatu duxaa aad tukaninba oon shaqaba ku lahayn, soo nin markaa yani isagu uun nin gaabiyey ma waa gaabis. xataa haddaad shaqaynayso oo subaxii aroortii aad baxayso, waqtiga firaaqada ahee fusxada yar aad hesho, 2 ragcadood waxaad duxada ah ka tegin. 4 haddaad ka dhigtana kaba fiicanba, waa arrin aad iyo aad u wanaagsan. haddaad firaaqo fiican leedaho 8 ka dhigtana waa sidii ugu suubanayd weeye wanaagsanayd. sunankii nawaafilkii qabliga iyo bacdiga ha ka tegin. 12 ragco oo aan farad ahayn haddaad tukato wax lagu siinaya sooma taqaan? waa naqaanaa soo maa. wallahi kulli inteena badan waa maqalay oo cilmi hadda nama seegana, laakiin inta ku dhaqantaa iska yar. 12 ragco oo fariido ahayn haddaad tukato, ilaahay guri buu jannada kaaga dhisaya. guri jannada ayaa lagu dhisaya. marka imise gurigaad maalin kasta u tagaysaa, imise gurigaad meesha ugu tagaysaa maadaama maalin kasta aad hesho. ina hada la risquna maa lahu min nafaad. salaada sidaan ugu dadaalo, sadaqaadkana aanu badino, quluubta iyo isu soo dumidda iyo acmaasha waxay ku hagaagaysaa oo ilaahay agtiisa la aqbalaya shaxnaa iyo buqdiga inuu meesha ka baxo, oo walaal aan noqono, oo mutaxidiin aan noqono, oo isku mid noqono. arrimaha sida khaaska ah noo sii khuseeya haddii soomaalida leeyahay arrin ilaahay dadkao dhan u abuuray oo tacriif loola jeeday bay si xun soomaalida u qaateen. ilahi wuxuu yihi qur'aanka waqabaa'ila litacaarafuu, waqabaa'ila litacaarafuu mish litatabaqaduu walitataxaqaruu. waa isku caydaan. xan waxaa ugu xun ummad dhanood xamata. qabiil hebel waa sidaas, qole hebel waa sidaas. ka waran kulligood yowm alqiyaama haday kusoo saftaan ku dhahan nasi acmaashaada saalixada adigoo iska miskiin oo wax badan baan hayn, oo lagu yidhaha qabiil hebel oo dhan baa halkan kuu fadhiya ken wixii aad samayso o dhan leanna waad xamatay. marka war oo midna kamaad reebin, saalixood iyo daalixood waa isku wada dartay. jinsiyad dhan haddaa xamata ka waran, jinsiye hebel waa qoladaas saasaa lagu yaqaana waxaas yihiin oo maxaa dadka u camimaysa? lima tacumuhum, maxaad u xamanaysa? uma ka bixi kartaa waxaas wadada inay acmaashaadii ay kaa qaataan. ilan qiibadu waa sida xadiidku noo sheegay, naska saxiixa uu ku yimid, waxay ka mid tahay waxyaalaha acmaashaada. waxaa laga sheegay sayidina xasan albasri raximahullah, wuxuu yidhi anigu cidna ma xanto, laakiin haddaan wax qof xaman lahaa hooyaday baan xaman lahaa. maxaa yeele hooyaday baan dadka ugu jeclaho inay acmaashayda qaadataa baan rabi lahaa buu yidhi, oo iska xaman lahaa si ay acmaashayda ay u qaadato, laakiin cidna xaman maayo. marka ummad dhan inaad xamato. marka isu dumnaanshada iyo isjacaylka iyo maxabadii iyo ukhuwat aliimaani waalislaam waxay ka mid tahay min himaari aliimaan. waxaan oo cuduruhu jirana oo adduunka maanta fitanka ka dhacayo dhanna waa wada acraad. cudurkiisu waa dacfu liimaan. iimaanka haddii la quweeyo shay kasta waa ficnaanay. towfiiqda allahna waafajiyo, dembigeennana allah dhaafo, dembiga waalidiinteenna allah dhaafo. inteenna meesha isugu timid ee caawa halkan khayrka ka soo qayb gashay allah naga aqbalo. imaatinka aan nimid iyo magaranaysaa dadaalka aan isugu nimid oo aan idinku boorinaya insha allah walaalaheen dadaalka badan khayr allah siiye. sheekh aadam wa sheekh cumar waljamaca hadool kulluhum ilaah khayr allah siiye. inaad u dhaga nuglaataan oo aad maaragtay xalaqada ku dadaashaan oo muxaadaradaas shahri waayo soo maha fii kulli shahr mar keliya intaas yar daqaa'iqaas saacadkaas intay doonto ha noqotee lilaahi walidiinihi aad siisaan. intaa inaa insha allahu tacala aan ku dadaalno biidni illahi tacaala. غفر الله لنا ولوالدينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين.
اللهم أمن الخائفين وآوي المشردين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد. ألف بين قلوب المؤمنين ووحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على النبي سيدنا محمد وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فهو من نفسي ومن الشيطان، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.